daawadayaal weligaa ma isweydiisay yaa bilaabay dictionary-ga af Soomaaliga ah sidee loo qoray markeena la bilaabay maanta waxaan ka sheekeyn doonaa taariikhda dictionary-ga af Soomaaliga uu leeyahay sida loo sameeyay markii ugu horeysay yaa si qaatay dadaalkaas iyo sida uu maanta ugu mid noqday luuqadaha u kaydsan caalamka waa sheeko xiiso badan oo muujinayso qiimaha af Soomaaliga uu leeyahay oo anigoo ah Taxkiin Elenko haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar mahadsanid aan ku bilownay af Soomaaliga muddo qarniyo badan ayuu jiray balse qoraal rasmi ah ma lahayn ilaa laga soo gaaro sanadka markuu ahaa 1972 ka hor waxaa jiray dhowr isku day sida farta carabiga oo culimo ay ku qoreen diinta iyo qisooyinka farta Soomaaliga oo hal abuuriyaal dad Soomaaliyeed oo iska mid yahay Cusmaan Yuusuf Kaynadiid ay isticmaali jireen ugu dambeyn dowladii Soomaaliya waxay go'aansatay sanadka markuu ahaa 1972 in afka rasmiga ah lagu qoro farta Laatiinka sababtoo ah farta Laatiinka ayaa fududeed waxay ku habbooneed daabacaadda tiknoolajiyadda iyo xiriirka caalamka waxay awood u lahayd in ay muujiso dhawaaqyada af Soomaaliga oo dhan marka farta Laatiinka la qaatay waxaa bilaawmatay ururin ereyada iyo qeexidooda waxaa hormuud ka ahaa aqoon-yahano iyo cilmi baarisayaal Soomaali iyo ajaanib iskugu jiro waxaa ka mid ahaa Shire Jaamac Axmed Suldaan Kiis oo u dhashtay dalka Hungary wuxuu sameeyay mid ka mid ah dictionary-yadii ugu horeeyay ee Soomaali English ah waxaa kaloo jiray culimo sameysay qaamuus af Soomaali oo af Carabi lagu sharxay oo lagu turjumaya sidoo kale waxaa bilaawmay olole ballaaran oo lagu barayo shacabka qoraalka cusub macallimiin ayaa loo diray tuulooyinka iyo magaalooyinka si ay dadka u baraan akhriska iyo qorista luuqadda xarfaha Laatiinka ah dad badan oo reer miyi ah ayaa bilaabay inay bartaan wax akhriska iyo qoraalka markii ugu horeysay buugagtii ugu horeeyay ee dugsiyada ayaa lagu qoray afka Soomaaliga iyadoo la adeegsanayo farta Laatiinka ugu dambeyntii dictionary-ga af Soomaaliga ah waxaa loo turjumay luuqado badan sida English, Carabi, Talyaani iyo Faransiis waxaa sababay arrintaasi in Soomaalida ay waxbarashada ay u fududahay in ajaanibta baranaysa af Soomaaliga ay helaan caawin wax badan ah iyo in la keydiyo dhaxalka luuqadda tusaale ahaan Somali English Dictionary ayaa noqday buug muhiim ah oo u ah ardayda iyo macallimiinta maanta dictionary-ga afka Soomaaliga ah maahan oo kaliya buug la daabacay waxa uu noqday digital laga heli karo internetka iyo absiyaasha qoraal casri ah oo lagu daray ereyo cusub oo tiknoolajiyadda la xiriiro iyo sidoo kale waxa uu noqday dhaxal lagu ilaaliyo jiilalka soo socda waxaa jiro ururyo iyo dad weli ku mashquulsan ururinta ereyada iyo qorista dictionary-ga cusub sida luuqadda ay u lumin oo ay u noqoto dhaxal markii la eego taariikhda saameynta dictionary-ga af Soomaaliga ah waxay ahayd guul weyn oo qarniyadan dambe soo baxday waxaa caawisay in afkeena qaaliga ah
yeesho keed turjumaad iyo dhaxal aan la iloobi karin. haddaba haddii aad tahay qof jecel luuqadda, qof aan afka Soomaaliyeed oo si wad ilaaliskiisa, haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe noo saar. haddii aad intaan soo gaartay waad isku mahadsan tahay. maxaad ka leedahay dadkii intaasoo dadaal soo sameeyey? maxay u qalmaan? xagga commentiga nooga reeb. waad mahadsan tahay.